daawadeel war degdeg ah hadda naga soo gaaraya magaalada Izmir ayaa waxaa la sheegayaa in dad Soomaali ah oo gaaraya 5 qof in ay ku dhinteen inta u dhaxaysa dalka Turkiga iyo sidoo kale dalka Greega. Wararku waxay sheegayaan in dad 3 qof oo ahaa dad ka baxay magaalada Izmir oo la sheegay in laba kamida ay walaalahaayeen in ay guud ahaan ku nafwaayeen inta u dhaxaysa dalka Turkiga iyo sidoo kale dalka Greega. wararkan oo ilaa xalay ilaa hadda aan xaqiijintooda iyo sidoo kale baaristeeda ku jirnay ayaa waxay noo cadaatay in markaasi ay ku dhinteen inta u dhaxaysa Turkiga iyo sidoo kale Greega. haddaba daawadayaal arrintan naxdinta leh ama la yaab kale waxay tahay in laba qof oo walaalo ah oo mid kamid ah la sheegay oo gabadh ahayd in ay badda ku dhacday in walaalkeedina isiri badbaadi in ay halkaasi ku nafwaayeen inkastoo markaasi qof kale isaguna dabaasha aan aqoon isaguna uu ku dhintay badda dhexdeeda. marka kaliya aan xaqiiqiyan helayno waxa weeye in dadkaasi markaasi dhimashadooda la keenay magaalada Izmir. arrintanina tahay arrin markaasi dhacday habeenadii ugu dambeysay. xogtan inta badan inkastoo dadka Izmir ku sugan aysan helayn haddana waxaa jira in wararku dadka ku sugan jeelasha oo mararka qaar loo ogolaado khadka telefoonka in ay warkan ka soo dhex tabinayaan jeelasha maadaama ay kaliya ee ilaha laga helayo in dadkani dhaawacooda dhimashadooda iyo sidoo kale qabashadoodaba. haddaba waxaan la xiriirnay dad ku sugan jeelashaas oo ay noo suurooday inaan 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo la hadalno oo noo sheegay in markaasi dad gaaraya 5 qof la sheegay dhimashadooda inkastoo markaasi 4 kamid ah la keenay magaalada Izmir waxaana ku jirtay markaa wiil iyo gabar walaal ah. 3 kamid ah waxaa xogtan loogu sheegay inay ka soo jeedaan Puntland waa sida warar aan ilaa hadda xaqiijin ay sheegayaan. sidoo kale waxaa jira dhacdo la yaab leh oo ka dhacday inta u dhaxaysa Buraha Kios oo la sheegay in wiil Soomaali ah qolo markaasi UN isku sheegtay in ay la baxday kadibna ay markaasi bireysay waa sida aan warar ku heleno ilaa hadda anagu aan xaqiijin karin balse dad yow kala duwan oo aan la xiriirnay ayaa arrintaasi noo xaqiijiyay. daawadeel wixii warar ee ka soo kordha dhacdooyinka naxdinta badan ee dadka Soomaaliyeed halkan aan dib u soo galin doona isha ku haya waxaan rajaynaynaa bal inaan magacyadooda iyo sidoo kale xogaha rasmiga ah sawiradooda in aan soo baahino si markaas dadka Soomaaliyeed ee ehelkoodu ay markaas meelaha fofog joogaan ay si ay xogtan uga dhargaan. waxaan rajaynayaa in Ilaahay u naxariisto dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee nolol doonka hayd. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.